يعني فرق وقدي دسي أنا إذا كنت جروب أنا خنا إني ما كدرك عيد صادر الموجة بلوج بعوضتي مكانتين قبل إني ما كدرك عيد يدي صادر بلوج وصار بايكو lagu magacaabo Quwayn Canab ayaa daawaday si weyn u qabsatay biraha bulshada kadib markii ay sheegtay inuu fadwooday Sheekh Shantay kaasi oo muddooyinka u dambeeyay dad badan oo YouTuber ah fadwoonayay inay yihiin gaalo iyo in la dilo dhammaantood arrintan ayaa si weyn looga hadalhayaa barta YouTube Facebook iyo TikTok taasi oo ah aaladaha ay Soomaalidu isticmaasho kuwooda ugu facaweyn amba ugu mug iyo miisaanka culus Sheekh Shantay waa sheekh soo shacbaxay magaalada Muqdisho kaasi oo muddooyinka u dambeeyay sheegay inay yihiin dad badan gaalo sababay iyo sidoo kale saaxiibo badan oo ku jira bartan YouTube Sheekh Shantay oo la sheegay in laga eriyay masaajidda magaalada Muqdisho ayaa sheegtay Quwayn Canab inuusan ahayn sheekh sax sana oo ka sheegay qaybaheeda dambe wax oo hablaha si weyn ugu daba jiro waxa ay sheegtay inuu haddii uu rabo ayay tiri haddii aad rabto fiidiyodeeda inaad daawato waan ku daawasiinayaa Quwayn Canab sidoo kale waxay sheegtay gabdhaha ugu baqday in haddii uusan ninku ku siin karin lacag kugu filan ugu yaraan $2,500 Mareykanka oo ciidaada aduuna ku soo diri karin iska fur ayay ku tiri xataa waa kuwa xaasaska ah haday ku jiraan haddaba muuqaalka Quwayn Canab si wacan ila dhageysa daawo ugu hadlaysa ninka $2,500 ciid ahaan kugu soo diri waa ku hadlaysa balaaq isku saar 3 sano 4 sano 5 sano wada socon maxaa ka dheefaysa awal baa hore reeb u ahaan wax reebkan ha cunina iska saara ana bilaaba idinku ku soo xirtada ninka 3 sano 4 sano isla soconaysa haduuna dhar ciid ku gadin aba iska tuur ninka la raadi oday raadi ku fadhiiso waayne niman balaaq baa wada tiin ciidan balaaqani la saaraya يا الله كان أتكاوح أنا هذا طلع نسينا وني جعلنا نعجها لقبنا ونمك بيل كان يوصل يرين يعني فرق برقدي السي التصفرة أنا إذا كسكو جروب أنا خنا أرتديك تاج مساجد مو نقول السكو عدينا شيقين تاع موجودة وكمر نصيانا دينتي وحى maxaa idin baranay odayga xunku hadda meelaan joogo Muqdisho joogo jiiska babti maarna aad suucayn isfartun balbalaarka liicato maanta ma aniga sheekhu kula kuyn arab gabar la dhaho video soo duubto saam waaydo gabar ku dhagdhageyso sheekhu videoga ma ka baxna ma ku soo dira ma fiirsanaysa hadduu kugu jirna fiirso hadduu ka baxna ani la soo xiriir ana ku soo diray sheekh macaan oo dibka naga dhaaf tartiib meesha u joog sheekh ma tiide wallahi qafkii rabo inuu soo caan baxdiintu soo caan baxaya أنا الشيخ وحنا الشيخ أمور يا كينيا بلا أجر هسيا يا الشيخ حسن إبراهيم كوس أنا كوس وأخانا لكن الشيخ قبل دبضي الماما الشيخ وما أخانا الشيخ معانو إيه لح ساك إلا هذا الواكل بد الله وما درنا يقول دستيرير كي إيه لح شيخين تكاسو هدلنا اللي يقول عنوي ورا شيخ دعوتي من وقالكم وحاسو أركتي أنتي هن حق هركو قصو شيء دمانتود صاحب يال برنامج كنا وحن كهدلنا arrimo badan oo real ah balse intaan mawduuca dhameystirin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka leeg saarto daawade una share gareyso saaxiibadana kale ee kugu dhaxayaan barteena Facebook aad baad ugu mahadsan tahay la jaanqaadkaaga iyo qurux badan ee nolol joogto Quwayn Canab waa gabar TikTok caan ka gaadhina 1 milyan views amba 1 milyan followers taasi oo soo bandhigta fiidiyo iyada oo qaawanaya iyadoo sameynaysa waxyaalo ka baxsan dhaqanka bini'aadantinimada xataa kan muslimiinta iska daayay oo iyadoo la baashaalaysa wiilal dhalinyaro ah iyo sidoo kale iyadoo jidhkeeda aan waxba saarin ku soo bandhigta barteeda TikTok taasoo ka hor imanaysa diinteena suuban maadaama oo waqtigana lagu jira bishii barakaysanada Ramadaan Quwayn waxay sheegtay Sheekh Shantay inuusan ahayn sheekh balse ay culimada u taqaano kuwa ay kamid yihiin Sheekh Umal iyo Sheekh Waaweyn oo ay iyadu soo hadal qaaday waxay Sheekh Shantay ugu baaqday inuu si caadi ah u soo weydiisto fiidiyoyada inay u soo dirto misana marka ay siin doonto haddii kalena ayay tiri hanaga daaya flagaadada iyo waxyaalaha foosh xun oo sheekhu nagu la kacayo Quwayn Canab Sheekh Shantay lagu magacaabo kaasi oo muddooyinka ugu dambeeyay ka soo shacbaxay Muqdisho ayaa si weyn u fadwooday inay tahay mushkilad weyn oo ku dhex jirta ummadda muslimka ummadda Soomaalida oo lagu tilmaamo inay 100% yihiin dad muslimiin ah ayaa la arkayay muddooyinka ugu dambeeyay qaasatan inta soo baxday bartan caanka ee TikTok waxa la arkayay hablo badan iyo wiilal badan oo ku soo bandhigaya wax ka baxsan shacab bini'aadantinimada iska daa xataa kan muslimada saaxiib yaal haddaba Quwayn Canab maxaad kula talinaysaa idinku waxayse kula muuqataa dhaqanada ay ku dhaqmaysaa aad ugu mahadsantihiin daawashadiina aragtidiina comment-iga noogu reeba waad ku mahadsantihiin muuqaalka